kulanti wanaagsan dhageystayaal toddobaadkan waxa martii inoo ah Khadra Daahir. Khadra waa gabar yar oo haddii aad aragto ma dheera mana gaabna waa jil yar tahay midabkeeduna waa maarin. Waxay ku dhalatay magaalada Hargeysa 1957 waxayna kamid ahayd ardayad wax ka barata dugsiyada magaalada Hargeysa waxana ay ahayd kuwa codadkooda loogu jecel yahay markii dugsiyada la xirayo halkaasi heesaha ama xaflooyinka waaweyn ee la dhiga dadka iyo kufarta lagu fiiqayay ay Khadra kamid ahayd. Bacdi markii intaas ardaynimada aan ku heesays jiray amba iskuulka marka la joogo ayaa haddana waxa dhacday anigoo aad u jecel fanka ayaa waxaan sameynay 1970 riwaayad laga dhigay iskuulka Technical Institute Hargeysa oo aan la dhigay ardaydaasi markii ka dambeysay oo aan jeclaaday inaan fanka ku soo biiro oo ay igu horeysay 74 ayaa wax dhacday inaan la soo qaaday hobalada waa bari riwaayadii la oran jiray dab jecel kariwa halkaas oo aan ka noqday markaas fanaanad jecel fanka. Khadra heesteeba markaasi kuugu horeysay markaad fanka soo gashay oo aad raadiyaha ka qaado waxa igu horeysay hees la yiraahdo afka lagama sheegto. heestaasi waxay kamid ahayd heesihii dadku ay jeclaysteen markii dhagahooda ay soo gaartay. Haddaba xasuus ahaan annagoo wali u soo noqonayna su'aalihii iyo jawaabadihii ma qashin karaysa dadku si ay u dhadhansadaan heestaasi macaanka badan. wala yaabse adigoo fanka aad ugu cusub haddana sida aad codadka u qaadayso iyo sida aad ula soconayso waa talaabo horukaca iyo hibo gooniya ha yeeshee waxaan shaki ku jirin iyadoo dhammaanba waalidiintu ay u bislaadeen fanka qiimaha iyo qaayuhu leeyahay haddana adigoo ardayada talaabada degdega ee xagga fanka aad u qaaday wax dhibaato ah xagga waalidka ma kala kulantay markaad fanka soo galaysay? maya kalamaan kulmin aabaha iyo hooyadaba waa joogeen markii aan fanka bilaabay isla markaa waxaa jirtay beri markii aan fanka aad soo jeclaanayay aan hooyaday ku idhi hooyo waxaan jeclahay inaad ii iibsid raadiye si aan fanka uga dhageysto dadka fanaaninta heesahooda anoo aad u jeclaa markaas wax qudad la yiraahdo kagamay jirin aabaha iyo hooyaday toona. Khadra waxa tiri riwaayadii igu horeysay waxa ahayd dab jecel kariwa waxayna ahayd isla markaas adigoo fanka soo galay wax shucuurtaada ay isbedela ama cabsiya miyay kugu jirtay markii dadweynaha faraha badan aad hortimid ee waxaad jilaysay? may waxba adigu inkastoo ay jirto qof walba markuu meeshiisa soo taagay inay yara naxnaxo dadkii fanka ku soo bislaaday mooyaane haddana wallahi wax dhibaato weyna ilama ilahayn. riwaayadda dab jecel heesihii markaa riwaayadda ku jiray ee aad qaadaysay hees markaad qaadayso yani shucuur kula lahayd ee aad u jeclaatay kaga duwanayd heesihii riwaayaddaas miyay jirtay? wallahi heesuu isku wada mid bay ahayn mid walba markaad qaadaysid mid walba dhiigaaga waa dhaqaajinaysay markaas. hadda Khadra heestee baad haddaba riwaayaddaasi nooga soo qaban lahayd adigoo jecel dadweynaha inay si fiican u dhageystaan ama waxaan jeclahay nooga soo qabto heeskii shafka kaalaygu qabo.
shilba wuxuu ka dhacayaa shabad quruxsan iyo wiil shada iska deeqo sheekaysta maalmee shilba wuxuu ka dhacayaa shabad quruxsan iyo wiil shada iska deeqo sheekaysta maalmee shibadoniga odhan shogmayayste shibadoniga odhan shogmayayste intaan sharaadtu iga bixin ishifayso adiguna ishifayso adiguna sow sharafkugu maalihii shuf jacayl igama dhigin sow sharafkugu maalihii shuf jacayl igama dhigin shafka kale igu qabo shafka kale igu qabo